kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeeni ciyaaro halkaad kala socotaan waa Cawaalo Official Channel. Qodobada ugu muhiimsan wararkeenana waxaa ka mid Rodgers oo doonaysa inay cadaadiska ku sii hayaan Man City haddii Saalix diyaar u yahay iyo xogta kulanka. Canaries oo booska kala bixi karta Man United iyo xogta kulanka. Pochettino mise Ten Hag tababaraha xidigaha Man United magaciisa ku sheekaystaan oo la ogaaday. Isbarbardhig lagu sameeyey Romelu Lukaku oo 115 milyan Chelsea ka soo bixisay iyo Olivier Giroud oo bilaash ku fasaxday. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar haddii aanu loo joogta like share ku darsiina faafi barnaamijkeena mahadsanid. Rodgers oo doonaysa inay cadaadis ku sii hayaan Man City haddii Saalix diyaar iyo haddii kale. Qodobka isaga ah ayaa aynu eegi doonaa. Kooxda Liverpool ayaa doonaysa inay cadaadiska ku hayaan Man City kulanka caawa Leicester City kusoo dhaweynayaan gegidooda Anfield Stadium. Guul ay ka gaadhaan ayaa mar kale 9 dhibcood u jiri karaan Sky Blue iyadoo weliba kulan baaqi ah gacanta ku haysata. Labada kooxood ayaa kulankoodii hore ku kulmeen King Power Stadium halkaasoo 1-0 guul ay ka gaadheen kooxda Fox. balse Rodgers ayaa markooda ka reebtay tartanka Carabao Cup-ka. Mohamed Salah ayaa Liverpool ka soo laabtay tartanka qaramada Afrika isagoo tababarka sameynaya maalmihii ugu dambeeyey islamarkaana diyaar u ah xulashada kulankan. Dhinaca kale tababaraha Leicester City Brendan Rodgers ayaa aan qabin dhibaatooyinka dhaawaca waxaana hubaala kulankan inay ka maqnaan doonaan ciyaaryahanada kala Verdi, John Evans, Wilshere Fofana iyo Kasagni. Canaries oo booska kala bixi karta Man United iyo xogta kulankan. Markan ayaanu milicsan doonaa kulanka dhex mari doona kooxaha Wolves iyo Arsenal. Kooxaha Wolves iyo Arsenal ayaa caawa ku ballansan gegida Millennium Stadium xilli labada kooxood hunguri kaga jiro 4 kaalmood sare ee horyaalka. Arsenal haddii ay kulankan badiso farqiga goolasha ay kaga sare mari doonta kooxda Man United iyo weliba kulan dheeri ah haysata halka sidoo kalena 1 dhibic u jiri doonta kooxda kaalinta afraad ku jirta ee West Ham oo dhinaceeda weliba iyadoo West Ham 2 kulan oo dheeri ah ay dheertay. Dhinaca Wolves oo ciyaartan badisa iyaduna waxay ka sare mari kartaa Arsenal qudheeda halka ay kooxda booska afraad u jirsan doonto 3 dhibcood oo keliya. Wolves ayay hubaal ka maqnaan doonaan ciyaaryahanada kala Pedro Neto, Johnny Willy iyo Marquero. Dhinaca Arsenal Mohamed Elneny ayaa ciyaaryahanka keliya la hubay inuu Canaries ka maqnaan doono kulankan kadib markii uu ku soo daayay tartanka Afrika. Sidoo kale waxaa qiimeyn lagu sameyn doonaa tamahaanshaha buuxa ciyaaryahanka daafaca midig ciyaara ee Tomiyasu. Haddii aynu kaga nimaadno kulamada caawa la ciyaarayo markan eegno wararka kale ee kubadda cagta. Pochettino mise Ten Hag tababaraha xidigaha Man United ku sheekaystaan oo la ogaaday. Qodobka isaga ayaa aynu faaqidi doonaa. Waxaa banaanka la keenay tababaraha xidigaha Man United magaciisa sida joogtada ugu sheekaystaan xilli haatan Ralf Rangnick si ku meel gaadh ah u sii joogo jagada macalinimada kooxdaas. Labada tababare ee shaqada Red Devils ku loolamaya waxaa kale ah Mauricio Pochettino oo Paris Saint-Germain hoggaanka u ah haatan iyo Erik ten Hag oo Ajax horkacaya. Si kasta sida lagu daabacay shabakadda ESPN
iyo badi safka Man United ayaa doorbidaya in tababare Pochettino hogaamin doona kooxda Man United, iyadoo ciyaaryahanada Man United rabitaankooda ay jecel yihiin Pochettino. Isla sidoo kale Pochettino ayaa rabitaankiisu yahay inuu isaga tago kooxda PSG una soo dhaqaaqo dhinaca iyo Man United oo xiisa u qabo. Dhanka kale, Erik ten Hag dhinaciisa maamulka Red Devils ayaa ku dhex leeyay shakhsiyaad taageersan, waxaana ka mid ah tababaraha haatan kooxda laaliya ee Rangnick, kaasoo la taliya noqon doona Old Trafford kadib shaqadiisa ku-meelgaadhka, isagoo door weyn ku yeelan doona magacaabista tababaraha xiga. Markana waxaynu milicsan doonaa isbarbardhig lagu sameeyey labada weeraryahan ee kale Romelu Lukaku iyo Olivier Giroud, oo midna kusoo biiray xagaagan kooxda Chelsea midna ka tegay kuna biiray kooxda AC Milan. Isbarbardhigga ayaa aynu faaqidi doonaa. Lukaku ayaa xilli ciyaareedkan oo dhan 9 gool ugu soo dhaliyay Chelsea 26 kulan, isagoo wax gool caawin ah aan sameynin ilaa xataa aan loo diiwaangelin. Dabcan maaha wax ku filan ciyaaryahan 115 milyan oo euro ugu qiimeysan kooxdiisa. Taas beddelkeeda, Olivier Giroud, weeraryahan Lukaku ku bedeshay Chelsea, ayaa wacdaro ka dhigay kooxdiisa AC Milan, isagoo 35 jirkan loo yaqaano Olivier Giroud ayaa qaabilayaasha ugu wareegay Milan xagaagii 2021. Xalay ayaa ahayd markii 2 gool oo kale u dhaliyay, taasoo ka dhigan in 4 maalmood gudahood 4 gool ugu saxay kooxdiisa AC Milan. 35 jirkan reer France ayaa 10 gool iyo 1 caawin ka sameeyay xilli ciyaareedka celcelis ahaan 129 daqiiqo kasta xilli ciyaareedkan ku soo dhaliyay gool. Dhinaciisa, Lukaku ayaa isaguna 9 gool soo dhaliyay xilli ciyaareedkan, isagoo celcelis ahaan noqonaya 201 daqiiqo kasta gool ayaa uu ku dhaliyay. Xaqiiqdan ayaa muujinaysa in Olivier Giroud ka fiican yahay weeraryahanka Chelsea ku lacag beeshay ee Romelu Lukaku. Barnaamijkeena ciyaaro, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, haddii hore la joogtaan like, share ku darsiina faafi barnaamijkeena. Mahadsanid.